toddoba sanaan maqnaayo maalintii aan airport-ka Hargeysa ka dhoofayay baa baabuuraan kaxeeyay ugu dambeysay markaan ka soo degay 7 sano ka bacdi way igu horeysay baabuuraan kaxeeyay baabuuraan steering ka qabto sababta waa checkpoint iyo bir iyo dhagax iyo meel aad gaar ku kaxaysay helimaysa waana hal jido warigi sheegay waxaan codsi u jeedin lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro inuu cafis guud u fidiyo xubnaha halka inoo jooga oo ay dalkooda si xor ah u yimaadaan way aragnimo iyo aqoon badan baa ku jirta wax badanna dalku ka faa'iideeya yani wixii Soomaali wada lahayd ama Yurub ha bixiso ama Mareykan ha bixiyo ama Carabi ha bixisee labada control xamar dhexdooda fadhiya haddana qofkii meesha jooga waxa la oranayaa hadda qof kasto Soomaaliya cuntaad naga cuntay madaxweynaha hore Puntland Cabdiraxmaan Faroolo qolada Muqdisho la hadlayay baa yiri warda istiraatiiji ma tiidin istiraatiijigu waa gacanka cadmeed iyo gacanka berbera wala yaqaana waxaan rabaa inaan marka ugu horeyso u mahad celiyo Axmed Kayse Aadan Ismaaciil Kayse Guray وعصمته شرفت له هل كان inoogu sameeyay waxaan kala rabaa inaan u mahad celiyo madaxda kala duwan ee ka soo qayb gashay xildhibaanada leh wasiirada leh aqoonyahan kale akademig kale ganacsatada leh dhalinyarada leh haldoor kale warbaahinta leh culimada leh dhamaantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaan kadib runtii anigu ma mudni in la mahad celiyo Allah shukr ala alwaajib sababtoo ah dalkan sidii aan horeba u sheegay rag baa iyagoo wax walba haysta intay ka dhaqaaqeen tuuta xidhay oo dabadna dhintay anigu intaan waa ka imi xilkii iyo xoolii iyo xurmadiiba laakiin intii in ka weyn ayaan u imi markaan xabar joogno waxaan ugu badan cunto wax la yiraahdo cunta waxbaa cuntaan ciir baa dhantaan waxaasaa ku badnayd yani wixii Soomaali wada lahayd ama Yurub ha bixiso ama Mareykan ha bixiyo ama Carabi ha bixisee labada control xamar dhexdooda fadhiya haddana qofkii meesha jooga waxa la oranayaa hadda qof kasto Soomaaliya deyn xitaa hadii la qaadanayo magaca Soomaaliyeed lagu qaadanayo halkaas lagu qaataa wixii ummadaasi wada lahayd ayaa hadhow la oranayaa qofkii cuntaad naga cuntay ninba maalin waxaan ku yiri warmiyaanad ogeyn yani waa 330 labada aqal marka la isku daro baarlamaanku 330 ka ilaahay ugu og inta ka hadhay xitaa hadda extension 2 sanadood lagu daro Somaliland Alan Musk inuu Saciid baa ku filan inuu mushahar ka wasiyo idan wax kala ka hadlaysa war meesha waxaanu islaanay waxa soo jiiday cunto ka hadlamayna ka daay haddana bahashi markay waxa la iska cunayay dhaaftay ay nacayb gashay ay dagaal gashay ay cuna qabatayn gashay ay meyd gashay raggii hore inta in ka yar ay diideen in meyd la cashuuro xilligii Maxamed Siyaad may gaadhin dabadeedna waxa cajiib ah raggaa hore geeri baabay u bareereen barwaaqana ugu soo bareen barwaaqo iyo bashbash iyo xurriyad laga yaabaa dad badan inay dareemayeen inaan aad u dareen badan magaalada markaan imi laakiin ilaa shalay markaan joogay meel kasta dadku waxaad moodaa dadka Soomaalidu aad bay u kala fogaadeen war isma hayaan caasimadda Hargeysa aynu joogno oo ah magaalada ugu weyn dhul Soomaaliyeed dhul Soomaali degto magaalada ugu weyn ilaa hadda waan wareegayo baabuur baan wato ma dhamay waliba waxaan idin ku darayaa 7 sanaan maqnaayo maalintii aan airport-ka Hargeysa ka dhoofayay baa baabuuraan kaxeeyay ugu dambeysay markaan ka soo degay 7 sano ka bacdi way igu horeysay baabuuraan kaxeeyay
baabuuran steerinka qabto sababtaa waa check point iyo bir iyo dhagax iyo meel aad gaari ku kaxaysaba heli maysa waana hal jido anigii sheegay hal jido wada bir iyo dhagax iyo check point iyo istaba gaariba ku kaxayn kari maysa ilaahay goog maalintii aan airportka gaarigayga ku tagay aan tagayba ay ugu dambeysay baabuuran steering qabto markaan airportka ka soo baxay Hargeysa 7 sano ka bacdi ayaa igu horeysay baabuuran steering qabto يعني waxay ku tusaysaa qof kastaana waa sida waxaan u maleynayaa nin sambalosha la yiraahdo hore uu sheego wuxuu yiri gabdho aan baabuur wadan anagu baa jirta gabdhaha iyaga hore uu sheegay raggaaba wadan iska daa gabdhaha marka xaaladda noocaasa ragga ku jira ayaa waxay u bu'ayaan inay yiraahdaan Soomaaliland baan burburinaynaa Soomaaliland baan cunaqabataynaynaa Soomaaliland baan la dagaalamayna waa iska gabal dhacayna lagama hadlo waxa uu muhiima adraawi baa yiri maalin baan ku yiri maxaa dareemaysaa bergu soo noqday dalka qurbaa ka soo noqday burcaan ugu tagay san ku yiri adeer maxaa dareemaysaa wuxuu yiri meel kasto adduunka baan tagay North America waa soo maray Scandinavian kan tagay Europe London buu ku noolaa Ethiopia ku noolaa boqol meelood wuxuu yiri meel kastaan tago marti baan ahaa imika aniga dadka marti galiyay marka imika waxaan dareemayaa inaan runtii marti galin doono dadka inaan gurigayga joogo inaan ehelkayga la joogo inaan asxaabtayda la joogo inta fadhida halka waa wada ehel iyo asxaab iyo qaraabo muhiimaduna waxay tahay meel kalena waan kaga hadli doonaa Somaliland waa dal weyn oo population badan 193 dal ee adduunka hadda bal kelmadda ayaga 193 dal ee adduunka 111 bay ka dad badan tahay 80 baa ka dad badan haddaad imika Google garayso wadamada ka yar 6 milyan waa 111 ee adduunka hadda 111 dal oo UN ka fadhiya ka dad badan tihiin wixii la sameeyay inay dulmi ahayd ba cadaamaysa dhaqaalena istiraatiijiga adduunka halkii ugu qiimo badnayd ayaa Ilaahay naga abuuray madaxweynaha hore Puntland Cabdiraxmaan Faroolo qolada Muqdisho la hadlayay baa yiri warda istiraatiijiba ma tiidin istiraatiijigu waa gacanka cadmeed iyo gacanka berbera wala yaqaana maraakiibtu xamar waxay u maraan si shalis bay maraan waxay maraan 1,000 kilomitir bay u maraan ma maraan maraakiibta wareegaysa والله وحسترا وريجا أوبهنا إني دتك بريانو راديان لكن إني دتك عنا قبتيان وظل الدجالمان وعلاديان وما يبهنا لكن الله ما تصين وحن كسر جبينية ولا شيء قبلها هل كان ينقد شو جا حلو أنا ذا يمسؤولين تهي وقت خنتي دال بدن ولا يسبدن هيستو وحن قد سوي شيء دلنا مدحونا جمهورية الصومال دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو إنه عفس جود وفديو xubnaha halka inoo jooga oo ay dalkooda si xor ah u yimaadaan waay aragnimo iyo aqoon badan baa ku jirta wax badanna dalku ka faa'iideeyo haddii dadku kaa tagaan waa dhibaato laakiin hadday dadku ku yimaadaan waa guul iyo nasri marka in dadka loo yeedho oo ay Somaliland noqoto meel santar ah oo sida Switzerland ummadaha geeska Afrika ku nool oo dhan oo ah janno inay noqoto cadaaladana in la ogaado dadkana la soo dhaweeyo dadku dhaqaalaysitaan aqli bay sidaan investment bay sidaan nabadgelyada la soo eeganaya ummadaha inoo yimaadana gaal iyo muslim wixii inoo yimaadaba inaynu soo dhaweyno aynu noqono dad hospitality wax la yiraahdo martigelin leh inagoo dhinaca kale amnigana ilaashanayna amniga inagoo ilaashanayna waxaynu Somaliland aad ugu horeysaa imika qolada Ethiopia ku bilaabeen ID cardka oo aad u bilaabeen ID cardka malaha Kenya barigan Afrika ugu horeysay qof kasta reer Somaliland inuu ID card leeyahay baan ognahay kaasan oo waliba sida lagu qaataa ay ka adag tahay baasaboorka Mareykanka amniga qayb ka tahay taana la sii xoojiyo dadkana la soo dhaweeyo waxaan ku soo gabagabeynayaa mar kale iyo mar saddexaad runtii waa mahadsantihiin ka soo qaybgalku waan wada joognaa waa wada shaqeynaynaa
xog badan oo kalena waynu wadaagi doonaa haddii ilaahay ka dhigo nimankaasna waa inagii nidhi warnimayo kala quusanaya qoma malaada aad mahadsantihiin